السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو waxaan ka hadlaynaa falanqaynta weekan inagoo ka bilaabayna DXY. Marka DXY weekii hore halkaas meelahaas ay mareysay sidaan weekii hore soo sheegnay waxaan nidhi ilaa meelahaas way soo gaari kartaa, correction bay samayn kartaa, kadibna kor ayay aadi kartaa sidaan filayo. Marka fideogii dib ugu noqon kartaa, waxaan sugay markastaba abtrainkii way samaysay, halkaas ay ka bilaabantay oo halkaasoo ku jiray waxa ku jira order block. Marka halkaasay ka kacday ilaa iyo waxay tagtay ilaa halkaas. Marka waxaan ka sugayaa weekan DXY, waxaan ka sugayaa inay correction yar gasho, in yar soo dhacdo kadibna kor aado. Marka chance kastoo abtireyna waxa weeyaan waa ka faa'iideysanayaa. Weli waxa isleeyay DXY-da kor ayaa la sii aadaya. Marka wax kaloo dhici karta inay toos halkan hadday intii sidaa xoog u soo dhacdo correction samaysay haddana hoos u soo dhacdo, macnaheedu waxa weeyaan toos baa hoos loo sii aadaya, hoos toos baa la aadaya ilaa iyo halkan waa la jebin karaa, ilaa iyo halkaasna waa lasii jebin karaa. Laakiin waxaan ka rajeynaya waxa weeyaan inay kor ka aado. Chance kasta oo correctionka marka la sameeyo, chance kasta oo dareena waan ka faa'iideysanaya haddii ay kor aado weeyaan. Marka sidaan rajeynaya waxa weeyaan waxay yar joogtaa meel xasaasi ah, laakiin sidaan lagu filaya waxa weeyaan waa abtireenkaas. laakiin wax dhici karta inay xoog soo dhacdo. Haddii xoog soo dhacdo waa down train bay noqonaysaa, laakiin sidaan rajeynaya waxa weeyaan up train. Marka DXY-da waxa isleeyahay ilaa iyo adigu ugu yaraan haddii ay kor ka aado ilaa halkaas waa la tegi karaa, ilaa halkaas waa kor baa loo jebin karaa, ilaa halkaasna waa la tegi karaa. Marka waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysatay DXY, waxaa isleeyahay weli kor ayaa la aadaya. Marka DXY hadday kor aado lacagahan badanka USD ugu dambayso hoos ayay aadeen. Marka Euro USD oo kale waxaan ka filayaa inay toos hoos ugu soo dhacdo, correction samayso hoos soo dhacdo. Marka chance kastoo down traina Euro USD waan ka faa'iideysanaya, chance kastoo down traina waan ka faa'iideysanaya. Marka chance kan diidaya waxa weeyaan waa down trainkaas Euro USD. waxaa isleeyahay halkaasna waa la jebin karaa, ilaa halkaasna waa la jebin karaa. Suuqana down train weeyaan, laakiin haddii ilaa halkaa kor loo sii jebiyo, macnaheedu waxa weeyaan suuqu uu isbedelay, waxaanu noqday up train ayuu noqday. Haddii halkaa marba laga kor maro wuxuu noqday suuq up train. Laakiin sidaan filaya waxa weeyaan inuu suuqu down trainkiisan kusii socon doono, chance kastoo downana waan ka faa'iideysanayaa insha Allah. Marka Euro USD chance kan ka sugaya waxa weeyaan waa down train. GBP/USD haddaan ku xigsiino, GBP/USD abtrainkaas lagu socday, waxaa la samaysanayay higher low higher high. Marka imka correctionkaas la soo sameeyay, waxaan rajeynaya iyaduna inay correction yar karsho, kor u yar kacdo kadibna soo dhacdo. Marka down train baan ka rajeynayaa tan. Wax kaloo dhici karta haddii ay DXY-du ay kor aado, haddii ay waxaan ujeedaa hoos aado, waxaa dhici karta inay halkan uu yahay impulsigeeni koowaad uu correction yar galo kadibna kor la aado. Labadaba way dhici kartaa. Marka markasta waxay ku xidhantay DXY sida u dhaqanto, meel xasaasiyana lacag way marayaan, laakiin anu markasta waxaan ka sugayaa waa down train. Markastaba lacagaan waxaan ka sugayaa waa down train haddii down train la aado. Laakiin haddii up train la aado oo kor loo sii socdo, correction la sameeyo, kor loo sii socdo, macnaheedu waxa weeyaan suuqani up train buu aadaya. Marka korkaas waa loo qabsanaya, markastaba dhinaca loo kacon ayaan uga faa'iideysanaya insha Allah. Marka waxaan rajeynayaa tani inay iyaduna down trainkeedii kusii socoto hoostaas. Kanoo kale impulse correction kale in la sameeyo kadibna lasoo dhaco, correction kale lasoo dhaco, sidaan yar rajeynaya. Waxaa kaloo dhici karta in correctionkani dhammaadayba kadibna uu correction soo galo kadibna korka la aado. Labadaba way dhici kartaa. USD GBP/USD waan eeginaa dhanka ay aado, laakiin sidaan ka filaya waxa weeyaan waa down train. Waxaan ka filaya waxa weeyaan down train dheer, laakiin waxay aadi kartaa sidoo kale up train bay aadi kartaa. Marka correction yar haddii la sameeyo, up trainkaas waan ka faa'iideysanaya, up trainka waan ka faa'iideysanaya. Marka iyadu waxay ku jirtaa meel xasaasi ay ku jirtaa, weekan ishaan ku hayn doonaa insha Allah. NZD/USD iyadu waxaan ka sugayaa correction yar intay kor u kacdo kadibna lasoo dhaco. Marka weli down trainkii muu dhammaan, abtrainkan yara halkan ka bilaamayna waxaan rajeynaya inuu correction iska noqdo oo aanu ilaa halkaa jebin, ilaa halkaa inaanu jebin uu meelahan kasoo noqdo ayaa waxaan rajeynayaa. Marka NZD/USD ilaa
halka hoos waa loo sii jebin karaa masleeyi marka down trend dheer baa soo socda kaas ayaan ka faa'iidaysan doonaa insha allah marka correction kama sugaya inay correction yar kasho kor la yar aado kadibna lasoo dhaco markaasaan jaanis kastoo aan oo ay siiso oo hoos loo sii socdaan geli doonaa insha allah waxaana rajeynaya inay ka faa'iidaysatay dhaqaaqan dheer ee soo dhacay AUD USD AUD USD iyada waxaan ka sugayaa inay correction soo aado kadibna kor ka aado marka iyadu way ka yara duwantay yar bay ka yara duwantay kor toos waa loo aadi karaa in yar correction inta lasoo galo kadibna hoos tiisii lagu sii yara socon karaa labada way dhici kartaa laakiin imika waxaan focus garaynaya waxa weeyaan baydaas ayaan focus garaynaya marka AUD USD shan ku haynayaa geli maayo laakiin waan sugayaa insha allah marka AUD USD waxba ha gelin sug baan ku odhan lahaa insha allah USD CHF iyadu waxaan ka sugayaa USD CHF waxaan ka sugayaa kor aado halka uu impulse uu ka bilaamo uu toos kor u aado wax kaloo dhici karta inay hoosta aado way dhici kartaa marka waxay ku yara jirtaa meel xasaasi ku yara jirtaa toos hoos way u aadi kartaa wax kaloo dhici karta inay kor aado laakiin anigu waxaan rajeynayaa inay halkaa toos uga bilaamato abtrain marka haddii uu correction ay sameeyo uu higher high kale ay sameeyo chance kastoo ka ay baayo waan ka faa'iidaysan doonaa insha allah laakiin haddii aanu samayn hoostiisii uu sii socdo marka macnaheedu waxa weeyaan sila ayaa la aadaya marka waxay ku yara jiraan badanka lacagahani wiigan meel yaro xasaasiya sidaan rajeynayana waxa weeyaan in kor loo sii socdo badanka marka tanna meel aad u saraysay maraysaa marka iyada waxaan ka rajeynaya inay correction soo gasho hoos soo yara dhacdo marka tani waxa weeyaan USD jabay correctionka dheer ayaa lagu socday ilaa correctionkaasi kala bartankaas lahaa meelaha uu ku ekaan karaa laakiin way sii socdaa waxay u egtay inay ilaa meelaha laga yaabaa inay gaari karto marka dhayga loo eego laakiin 4 hourka waxa lagu socdaa waa abtrain marka meel aad u saraysay joogta meeshaas oo kale inaad ka sel garaysid ama ka buy garaysid ma habboona waxaa markasta habboon inaad sugtid in tareenkan 4 hourka ee halkaas uu yahay lower highgiisu higher lowgiisaan ujeedaa in halka lasoo jabay marka silunka baadhanaysid marka dhiigas waay badanka waxay ku yara jirtaa meel xasaasiya waxaana ka rajeynayaa in korka la aado marka sidai aan ka rajeynaya weyaan wax kaloo dhici karta haddii hoostaa la aado correction la sameeyo hoostaas lasii aado macnaheedu waxa weyan suuq toos ayuu downtrend iskugu bedelay ilaa halka la jebin karaa ilaa halkaan oo la jebin karaa laakiin chaniskan anigu sugaya markasta waxa weeyaan waa abtrainkaas markastaba janiska abtrainka sugaya waxaan isleeyahay ilaa halkaa la jebin karaa ilaa halkaasna waa la gaari karaa marka waan eegaynaa inuu suuqu korka aado iyo in kale intaa ayaan ku joojinaya falanqeynta weekan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu